السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالين وناكسن waxaan rajeynayaa dhammaantiin farxad caafimaad iyo wanaag ilaahay ummadeena abaaraha iyo dhibka colaada dagaalka iyo rafaadka allah ka saaro culays walba oo jirna allah noogu bedelo yusri fudayd barwaaqo iyo wanaag waxaan halka kasoo jeedinayaa aragti yar oo buugaan akhrinayay iga cajbisay ama iga saamaysay sidaad ogtihiin hal abuurka iyo luqadda waxaa ka dhexeeya xiriir aad iyo aad u weyn qofku hal abuur ma samayn karo wax qurux badanna ma curin karo waxba ma qori karo wax gabay ma samayn karo hees ma samayn karo gabar ma buraanburi karto haddii ayna lahayn ama aysan haysanin ama uu qofkii lahayn awood luqadeed oo u hirgelisa wax walba oo uu rabo inuu dhaho sidoo kale qofka haddii uu si walba luqad u yaqaano oo luqadiisu fiican tahay haddii uusan lahayn xis ama dareen ama hibo hal abuur asna wax ma sheegi karo waxaa jira faylasoof iyo taariikhyahan siyaasi mararka qaar lagu tilmaamo inuu ahaa falaasifadii ama faylasofyadii ugu wanaagsanaa ama ugu caansanaa dunida reer galbeedka dabayaaqadii qarnigii labaatanaad waxaa la jiray Foucault ayaa ama Foucault dadka qaarsay dhahaan ayaa waxaan buug qoray ka akhri maal dhuyto erey aad ii soo jiitay wuxuu leeyahay hal abuurka iyo qofku inuu ibdaac sameeyo ama uu wax curiyo curin tolmoon oo qurux badan oo wanaagsan oo dadka qancisa waxay ku xiran tahay qofku sida uu u garanayo ama u fahansan yahay ama u yaqaano isbeddelka horumarka dib u dhaca iyo kobaca ku dhaca luuqadda oo luqad qofku wax ku curinayo iyo fahanka uu u leeyahay qofku waaqicaas uu wax ka qorayo ama uu ka gabeeyo ama uu tacyiraa midkii dooni ha dhehe uu wax ka sheegayo haddii aadan fahansanayn waaqica aad ku nooshahay ama aad rabto inaad wax ka sheegto tusaale ahaan waxaan rabaa inaan maanta aan wax ka qoro soomaalida nool qarniga 21aad la mid ma aha soomaalidii nooleed qarnigii 20aad iyo qarnigii 19aad iyo wixii ka horreeyay ma aha dadkii la noolaa labo luqadda maanta lagu hadlo ee soomaaliga ah ma aha luqadii 1920kii lagu hadli jiray ma aha luqadii 1800 lagu hadli jiray ma aha waa luqad isbedeshay horumartay wax ka baxay erayo cusub soo kasbatay meelo qaar dib u dhac ka samaysay meelo qaar horumar ka samaysay yani isbedel weyn ayaa ku dhacay asagoo la raba in uu tusaale ahaan Foucault wuxuu rabaa inuu na tuso sida qofka si kastoo luqadda u yaqaano haddii uu horumarka iyo isbedelada luqadda ku dhacay uu ka maqan yahay ama waaqica lagu nool yahay uu ka maqan yahay oosan waxa uu sheegayo aysan wax muhiim u noqonayn ama laga yaabo qof hiba ahaan ka hooseeya inuu kaga fiicnaado waxaa tusaale usoo qaadan karaa kule soo tusaalooyin badan buu bixiyay laakiin waxaan tusaale usoo qaadanayaa af soomaaliga tix iyo tiraaba dadkii noolaa 100 sano ka hor ee soomaalida ahaa waa looga dambeeyaa yacni waa heegada sare ee curinta iyo hal abuurka iyo garashada afka soomaaliga saasay tahay maanta kaba soo qaad سيد عبد الحسن أما علي روح أما رجل لأيني هاي هاي لوقتك أها هدان ما أنت ديبو صار نولينو حالي وحان داوني وكبد عياريين مانشستر يونايتد ليفربول أو ليفربول اللي بدي داودي هدي لبضع أوضي جدت كي لنولا لصور نولي أو جرون كي أولد ترافورد حالي اللي هو عياري لقي أو سديتهم كن أوقف يداونيان وكبد العياري أو هو بالككب يوحن أما يعني wax ka sheega waxa xaqiiqo ah aniga iyo adiga idaawanaya oo laga yaabo inay kubadda daawanayeen 20 sano 10 sano 15 sano iyo ka badan in aan kaga fiicnaanayno garashada iyo tabinta iyo sheegidda kubadda cagta sababtoo ah waxay leedahay qawaaniin waxay leedahay hal hays waxay leedahay mustalaxaad ama erayo gaar oo loo isticmaalo ay leedahay oo odayaasha ka maqan waxaa laga yaabaa inaysan garanaynin qawaaniinta kubadda hagta inta qof lagu ciyaarayo sida loo kala ciyaarayo maxaa khalada maxaa saxa
gool muxuu yahay gool haye muxuu yahay difaac muxuu yahay weerar muxuu yahay shaqadiisu maxay tahay coach shaqo iyo leyl iyo muxuu yahay yani waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa in ay jaahil ka yihiin waxaa laga yaabaa in aysan garanaynin dhan kale af soomaaligu imo af soomaaligu ereyo badan oo kubadda cagta ama aan ajnabi kasoo ergeysano ama inaguba aan samayne ereyo badan oo kubadda cagta loo isticmaalo odayaashu wuu ka maqan yahay saa darteed si kastoo qofku luqadda u yaqaano si kastoo oo qofku luqadda u fahansan yahay si kastoo baxar u yahay haddii isbeddelka luqadda ku dhacaysa yani sanawaadka badan ee luqaddu jiraysa isbeddel ku dhacaysa qofka hadduusan garanaynin waaqica lagu nool yahayna markaa uusan garanaynin si kasta oo qofku hal abuur u leeyahay hal abuurkiisu wuxuu noqonayaa mid aan tayo lahayn saa darteed waxaan u baahannahay qof hal abuurku inuu fahmo waaqicuu ku nool yahay dadka uu la nool yahay maxaa saameeya maxaa ku hareeraysan maxay jecel yihiin maxay necab yihiin sidoo kalena uu la socdo mar walba ma aha in adoo 100 sano dhintay ka hor waxaa laga yaabaa adoo nool inaadan garanaynin isbeddel ku dhaca luqadaada isbeddel ku dhaca luqadaha kale saamaynta kugu leh si aad qoraan wanaagsan u noqotid hal abuur leh hal abuurkiisu macno sameeyo waa in aad la socotid isbeddelada ku dhaca afafka sidoo kale waa inaad la socotid waaqicaaga iyo waxa saameeya iyo suu yahay iyo xagee loo socdaa iyo maxaa la jecel yahay iyo maxaa laga cabsadaa iyo maxay ku daneeyaan iyo maxay waxaas oo dhan waa inaad ogtahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ma fahantay waxa aan ka sheekeynayo si ayse kula muuqataa